maantu waa bishii Abriil 16 sanadkuna waa 2025 shalay oo ahayd bishii Abriil 15 sanadkuna ahaa 2025 waxaa bilaabatay gobolka Banaadir isdiiwaangelintii dadweynaha ee isku diyaarinaya in insha Allah taala bisha 6 ee sanadkan la galo doorashadii golaha deegaanka ee Soomaaliya annaga haddaan nahay guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimaha manhajkeena iyo mandatekeena wuxuu ahaa inaan dalka gudbino dadka Soomaaliyeed inay isdiiwaan geliyaan oo ay doortaan madaxdoodii golaha deegaanka qorshihiis sidoo ahaa uu fulay shalay waa bilownay inaanu ka diiwaan gelino hal degmo oo kamida gobolka Banaadir oo Shingaani ah warbixin kooban shalay wuxuu dhaceen shalay guud ahaan subaxii markuu ahaa labada saac subaxnimo waxaa bilaabatay isdiiwaan gelinta dadweynaha degmada Shingaani dadka degan degmada Shingaanina 100% aad u soo baxeen numberkeena annaga haddaan guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimuhu wuxuu ahaa in number kooban oo dadka deegaanka degan beeskooda ah baan ugu talagalnay laakiin run ahaantii numberkan filaynay number aad uga badan ay yimid xaafadda Shingaani sababaha aan ku dooranay haddaan guddiga doorashada iyo sohdimaha waxay ahayd marka hore gobolka Banaadir degmada Shingaani waa degmadii ugu horeysay ee degmo noqota gobolka Banaadir waa degmad facweyn qadiimi ah dadka xadaarada ugu sareysa ee Soomaaliyeed ee degan yihiin taas aan hor ku dooranay degmada Shingaani oo ugu talagalnay inay opportunity u hesho fursadna u hesho isdiiwaan geliso run ahaantii shalay dadkii soo baxay marka ka aragteen meediyaha numberka badan ay yimid waxay muujinaysaa degmadaas inay tahay degmad hormuud u ah in dalka Soomaaliya ay u jihaysato inay noqoto wadan dimuqraadi ah oo hor u socda waxaan nasiib wanaaga shalay in subaxii markaan furnay 6 in the morning diiwaan gelintan aan bilownay 2 saac oo habeen subaxnimo inay socotay ilaa 1 saac habeenimo qorshaha iyaguna wuxuu ahaa inaan galabtii 5 boolinka la xiro dadkii yimid oo tiro badnaa oo run ahaantii qaarkood intay yimaadeen 11 in the morning ama 6 saac subaxnimo habeenkii 7 ay ku gaareen inay helaan isdiiwaan gelin iyo fursad helaan marka shalay wax badan aan ka baranay waxay ahayd maalin murtii ahayd albaab u furtay Soomaaliya inay aaday wadadii dimuqraasiyeeshinka wadadii dadku ay dooran lahaayeen dadkooda waxaan rabnaa inaan fursadan maanta aan dhiibayno aan ku dhiibno in shalay aysan dhicin wax accident meesha ayna ka dhicin arrimo waaweyn waxaan riboodka ku haynaa in 2 qof ambulance qaaday hal qofna meesha dhexdeeda lagu siiyay oxygen-ta neefsiga waxaan rabnaa inaan si gaar ah ugu mahadnaqo taliska ciidanka bilayska Soomaaliyeed oo runtii muujiyay karti iyo hufnaan ay ku muujiyeen sida ay u dhacday amniga meesha degmada Shingaani amnigeedu shal aad u fiicnaa ma hadda waxa iska leh taliska ciidanka bilayska iyo dhammaan hay'adaha kale amniga especially bilayska iyo laamiska kala duwan waxaan si gaar ah ugu mahadinayaa guddiga madaxa bannaan doorashada qaranka shaqaalaha iyo xubnihii guddiga ahaa oo runtii shaqo fiican qabtay waxaan rabaa maanta press conference-gayga inaan dhaxtaal uga dhigo in guud ahaan ay ku dhamaatay maalintii ugu horeysay ee doorashada degmada Shingaani guul 100% ah dadkuna ay si nabada ay isku diiwaan geliyeen si nabadana ay meeshii ugu dhamaatay 100% oo ku mahadsantihiin waa bilaaw shalay bilaabatay maantana waa socotaa haddaan ka imid polling stationada isla markaasna waxaan rabaa inaan fartiin u diro dhammaan deegaanada kala duwan ee dalka Soomaaliya oo guddigu uu rabo inuu ka qabto doorashada golaha deegaanka inay bilaabatay diiwaan gelintii shalay ayna bilaaban doonto slow by slowly ee u bilaaban doonto isku xigi doonaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo isteediyada kale oo aadi doona insha Allah taala shalay maalintii ahaydna waa noo bilaabatay isdiiwaan gelinta waana socon doontaa ilaa bisha May 15keeda intaas waa inta maanta aan ku yeeray meediyaha insha Allah taala wixii kala soo kordhana waa idin update gareyn doona. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.